بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. ولا ليال درسينا دينيغا waxaanu ku soo qaadanaynaa awsaaful iimaanil kaamil, iimaanka kaamilka ah sifooyinka uu iska leeyahay ayaanu soo qaadanaynaa. waxa weeye iimaanku waa islaamnimada ku xigaa, oo iimaanku wuxuu iska leeyahay arkaan sida xadiiska saxiixa ku soo aroortayoo nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiiska dheeray oo jibriil su'aalaha uu weydiinayay oo iimaanka markaasi oo weydiiyey oo nabigu dhahay an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aakhiri wa bil qadari khayrihi wa sharrihi. xadiiskaas ayaa markaasi waxa weeye iimaanka looga hadlay arkaantiisa oo lixda ah. marka hadda iimaanka waxaa la rabaa qofka mu'minka ah iimaan kaamil ah inuu la yimaado. iimaanka waxyaabo nuqsaan geliyaa jirta sida saxiix ah oo culamaa ahlu sunna wal jamaaca ay qabaan, al iimaanu yaziidu wa yanqus bay dhaheen. iimaanku waa ziyaadaa waana nuqsaanaa. waxa weeye iimaanku wuxuu ku siyaadayaa dhegaysiga ilaahay subxaanahu wa tacaala mawaacidda ka imaanaysa ee rasuulkiisa ayuu ku siyaadayaa iyo taqwada. haddii waxaas laga tagane iimaanku waa ku nuqsaanayaa. qur-aanka ayaana caddaynaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaanku inuu ziyaadaya ilaahay qur-aanku u sheegay. aayadaha hadda aynu ku iftitaaxnay oo ilaahay u dhahay innama almu'minuuna aladiina idaa dukira allaahu wajilat quluubuhum owdha ilaahay. mu'miniinta iimaankoodu kaamilkaya waxa weeye kuwa markii ilaahay agtiisa waciidkiisa lagu sheego wajilat quluubuhum, quluubtooda ay baqayso. wa idaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan, aayaadka ilaahay markii lagu akhrinayo iimaankoodaa ziyaadaya. marka hadda iimaanku inuu ziyaadaayo oo ziyaadana lidkeedu nuqsaan ay tahay aayadahaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku caddeeyo binasil kitaab weeye wa sunna. intaasaa lagu wada caddeeyey. marka hadda annagoon hadda aayadahaas aanan sii aadaynin si maarataya aanu usoo ikhtisaarinno, waxa weeye waxaa markaasi axaadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu noogu ishaaraayo iimaanka kaamilka ah ayaanu soo qaadanaynaa. midda kaleentood aayadahaas markii lasii akhriyo waxaa markaasi imaanaysa aakhirkooda ulaa'ika humul mu'minuuna xaqan lahum darajaatun cinda rabbihim wa makfiratun wa risqun kariim. inay ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala inay horta dad mu'miniin kaamil ay yihiin oo xaqa ay yihiin, darajaad ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin, risqi kariim ay ku leeyihin oo jannadii loola jeedo. laakiin arrintaas waxay ka dhalatay markii laga helay iimaan kaamila oo saxiixa laga helay ayay derajadaas gaareen. haddaad qur-aanka akhriso oo markaasi suuratulmu'minuun qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waaladiina hum cani illaqwi mucriduun ilaa aakhiri alaayaat intii laga gaaraya ulaa'ika humul waarisuun aladiina yarisuuna alfirdowsa hum fiiha khaalid ilaahi u dhihi doono. waxa weeye iimaan kaamila ayaa laga helay, markaasay derajadaas gaareen. derajada iyo maqaamaadka ilaahay agtiisa waxa looga gaaraayo iimaanka kaamilkaa weeye. iimaanka markaasi in nuqsaanta laga ilaaliyo oo waxyaabaha iimaanka markaasi gaabinaya ama maaragtay naaqiska dhigaaya in la iska ilaalishaa loo baahan yahay. oo aayadaha qur-aanka la akhriyo, markii la akhriyane derajada markaasi ilaahay bacdigooda uu sheegaayo wixii sifaad ahay oo la soo sheegay ina la soo tirsado, nafta laga raadiyey in arrintaas lagu sifoobo. marka hadda ilaahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixoo laga wariyey
oo xadiisu shaykhayn ah nasaa'i xataa uu wariyey xadiiska waxaa laga wariyey saxaabiga la yidhaah anas ibnu maalik radiallaahu canhu ayaa nabiga wuxuu ka wariyey nabigu inuu dhahay laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin ow rasuul waxau dhaha rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam axadkiinna iimaankiisu kaamil maahan hadda xadiiska daahirkiisa laa yu'minu axadukum axadkiin ma rumaysna ayuu dhahay rasuulku hadda ma rumaysna haddii la yidhaahdo waxaa markaa daahirku uu kuu sheegaa haddii qofka sifaadkan laga waayo inuunaba iimaan lahaynba laakiin sida hadda meelo badan axaadiista markii laysu geeyo ay lagu caddaynaayo waxaa meeshaan lagu anfinayo waxaa weeye laa yagmulu iimaanu shaksin weeye shaksi iimaankiisu kaamil noqon maayo ilaa markaasi ilaahay iyo rasuulkiisa wax raalligeliya ou kala imaanayo oo markaas haddana ilaahay iyo rasuulkiisa maaragtay uu ka jeclaanayo ahalkiisa iyo owlaadiisa iyo dadka dhammaantooda uu ka jeclaanayo marka waxa weeye ilaahay waxau dhahay rasuulkeenu laa yu'minu ma rumaysna axadukum midkiin xataa akuuna intaan ka ahaanayo aniga nebi moxameda axabba ilayhi xaggiisa mid loo jacayl badan yahay min waalidihi waalidkiisa oo waalidkiisa dhalay oo aniga khayru khalqillaahi uga jeclaanayo iyo wa waladihi owlaadiisa iyo wannaasi dadka ajmaciina dhammoon bal u fiirsa hadda maxabbada rasuulka calayhi salaatu wasalaam maqaamka dadka ay gaarsiiyeyso haddii hadda maxabbadaas la waayane waxa weeye qofkii iimaankiisii aanba wax jira aan ahayn sababtoo ah iimaankii waxa uu ku jiro oo iimaan kaamila lagu helaayo waa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax walba wixii ilaahay ka soo hara laga jeclaado waa inaad nabiga ka jeclaataa waalidkaaga aad ka jeclaato owlaadaada aad ka jeclaato ahaladaada aad ka jeclaato bani aadanka dhammaantiis aad ka jeclaato xataa ambiyada iyo rususha iyo malaa'igta ku dar waa inaad ka jeclaataa haddaan taas la helin maxabba ma jirto markaasi oo markaasi ictibaar leh iimaan oo kaamila ma jiryo weeye marka maxabbadii iyo iimaankii oo kala laasimaaya waxay isugu imaanayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisay isugu imaanayaan maxaa yeele xadiiskaa nabigu wuxuu leeyahay axadkiin ma rumaysna xataa akuuna axabba ilayhi intii uu iga jeclaanaayo oo maaragtay aan uga jacayl badnaanaayo min waalidihi waalidkiisi dhalay iyo wa waladihi owlaaddiisa ou dhalay iyo wannaasi dadka ajmaciina dhammaan marka bal u fiirsa arrintaas arrin yaabla weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa saas in loo jeclaadaa weeye maxabbada hadda marka meeshaan waxaa laga wadaa hay dhaheen culummadu laasimkeedaa laga wadaa oo ah waxaa weeye imtihaalu amri lmaxbuub midka la jecel yahay amarkiisa in la fartoomo nabiga waa jecelahay mana raacsani oo manhajkiisi iyo dariiqadiisii waa ka leexday taas waxba kama jiraan xadiiska markaasi ma ahan in nabiga calayhi salaatu wasalaam qalbiga waxa weeye maxabatuljinaan ma ahan oo waxaa jirka maxabaa iyo shafaqa ma ahan sida owlaadda iyo maxabatulcishqi sida qof caashiq ahoo naag jecel iyo waxaasoo kale maaha waxyaabahaas maxaa yeele maxabbadaas waxay kuma yimaadaan ikhtiyaar kuma yimaadaan ee shayga qofka qahran wax ugu dhaco weeye laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam maxabbadan la jeclaanayo waxa weeye waxaa laga wadaa in nabiga haddii la jecel yahay waa in amarkiisa la qaataa maxaa yeele insaan qofkii jeclaado culummadu waxay dhaheen fa inna man axabba insaanan saaraca fii hawaahu qofkii insaan jeclaada wuxuu u degdegaa jacaylkiisa oo qofkaad aad maaragtay aada jeceshahay hawadiisaaad u degdegaysaa wuxuu jecel yahay ad la jeclaahaysaa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaad jeceshahay wixii nabigu uu jecel yahay waa inaad la jeclaataa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay allihiisa u jecel yahay kitaabkaas ilaahay la soo diray inuu ku camal falo ayuu jecel yahay wixii xumaanahoo dhan oo sifa xun inuu ka leexdo u jecel yahay waddadii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu qaaday markii aad qaadayso ayaa maxabbada nabiga markaasaa sax la dhihi karaa laakiin qof waxaa weeye manhajkii rasuulka ka leexday een jacayl nabiyaa ihaaya dhahaaya kaas waxaa weeye beenuu sheegayaa taasna ma ahan markaasi dadka in lagu qaldama ah xadiiskaas waxaa wariyey bukhaari iyo muslim nasaa-ina waa weriyey haddii mar kalentood xadiis anas uu wariyey aynu soo qaadanno waxau dhaha rasuulkeenu
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحيابها إيمانك كملة رسولك هؤلاء أحد كين مره ما يسنى وكيك لما عنهيسيو إيمان كيسو كامل معها حتى يحب لأخيه ولا الكيس انت وكلا جعلان ما يحب لنفسه وحو نفتي سلجعله بني آذنك وحيابها كوبا ضنوه لباتذا كوكينا وحاكا كمذا وحالي هذا حسدك إيا حقدك قفك انت وقف ولا الكيس حسدايو oo waxa weeye markii oo wax Ilaahay nicmo uu siiyo wadnaha lagu dhufanayo beerka uu ka kala qariraayo waxa weeye iimaan ma laha qofkaas waxa la rabaa waxaad adigu naftaada la jeceshaho khayra walaalka inaad la jeclaato saasa loo baahan iimaanka shakhsigu kaamil ma aha weeye tan iyaduna ilaa dadka muslimiinta oo kala jeclaanayo wuxuu naftiisa la jecel yahay naftaada basalama caafimaad la jeceshay tanaadnimaad la jeceshay توفيقات لجعشاي أولاد بعض لجعشاي أزواج أياد لجعشاي وحكا سيكفر أحضار لجعشاي وإن عددك مسلمين تايقنا وحصل لجعلاته هديك الانتوض أو قف مسلم مركاد أركته أو إلهي النعمي وضنها الوغول فنايو أو مركز ساسا إيمان ماشا اسمياله وحا مركز إلهي أكتيس الدرجة اللي قارعنا وحوي إيمانك كامل كاوي سيدا هذا إلهي قرآن كالنصوصي سوكو عدي iyo sida nabigeenu u cadeeyay hada dadka muslimiinta oo walaalaha hatta culimada qaar waxay yiraahdeen akhiidan hatta waxa weeye muslimka kaliya ma ahane bani aadamka kale hatta gaalka waxa la jeclaha maxay gaalka waxa la jeclaanaya inuu soo islaamo oo markaas akhaaka fil islaam uu noqdo walaalka islaamnimada ku jira laakiin aad gaalnimadiisa ku jeclaata ma gaalka waxa aad ka jeclaa kartaa waxa weeye inaad u jeclaato inuu soo islaamo oo markaas islaamka soo xoojiyo oo garabkaaga biri oo noqdo inaad saas ula jeclaataa loo baahan laakiin inaad asagoo macaasidiisa iyo kufrigiisa ku jira hadaad jeclaato meeshaas wax iimaanaba ma yaalinba xadiiska marka xadiis saxiix waaye umahaadka waxa weeye ilaa aba daawud mooyaan inta kale waa wariyay waxa kale soo qaadanaynaa xadiis isla Anas laga wariyay oo rasuulkeena عليه الصلاه والسلام uu ka wariyay nabigu wuxuu dhahay salaasun man kunna fihi wajada halawata al-iimaan uu dhahay nabigu saddex khasladood amba saddex arimood qofkii laga helo iimaanka macaantiisa oo helayo dhahay rasuulku waa qof waxa weeye daaqa du'ma al-iimaan al-kaamila laga wada ahadiis hadda aanu ka waramayno iimaanka kaamilka ah laga hadloo haya saddexdan arimood qofkii laga helo إيمان كامل أيود الدمية أو هيستهور رسولك عليه الصلاة والسلام وأنا صدقا وأورى رسولك عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مدى أبوه ريسا وحوي إلهي رسول كيسة وأنا أكجع على ذوحي كالصهرة أو إلهي رسول كيسة إلهي جعل هذا أو وحي أيك الصهرة وكجع هذا وحكست إلهي رسول كيسة وأنا كجعلاته هذا أرنتو ساسين الماشى إيمان ما يالو وهوي وحي إلهي رسول كيسة رالي قلنا آيات دورنا يسا أو دوحك ساعد كدورنا يسا مركا وحاولا رسولكو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذا إلهي رسول كيسة دان لجعلين أيام بها دا وحلا قارا يسجر أدوية آخر حبالك قاري مالي مدى الله بعد وحوي وأن يحب المرأة لا يحبه لله تعالى قفك إنه جعل مسلم كأه أوصن أجعلان إلا الله دراد اسمه وأن يحب المرأة روح وإنه جعل هذا لا يحبه السجل أجعلان إلا لله تعالى إله دراد اسمه قفك مسلم كأه وعلى الربا جعلك أجعل شيء در إلهي إليك أهات وهو مسلم كمحبة أجعل شيء ولله تعالى maxaa ila adoon ilaahay weey qofkaanu inuu saas yahay inaad u jeclaataa laga rabaa hadaad maal u jeclaato siyaasad aad u jeclaato asabiyad aad u jeclaato waxaas waxa weey wax iimaan ma ahan taas iimaan ma ahan qaraabada in la jeclaado waa la rabaa laakiin waxa la rabaa qaraabadu dad oo maartay shariicada islaamka kuula walaal oo kuula dhaqma inay yihiin laakiin haday diinta ay ka tagaan waxbana adiga markaas aysan ka maqlaynin إنا هرت إسك حريري سواح دبا مال أو حق قعنت إيه صاص لكن وحوي قف إلهي رسول كيس بيني أما الروميني إلا حرير شاه إيمان كوا كمد معه
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ما تقول إلى هذا سيقل مين وحتى لقوا حتى آباء ذا هذا قف إلهي رسول كيس خلافه لجعلان معي مركا قفك مركا جعلان يسو وعلى ربا در الله إناد جعلاته در الله مركي اللي يسو جعلها جعل كاسوا صعنايا لكن هذا دنيا وحي أبضتي دنا إن لا يسو جعلاته أو مركا دنا الدنيا هذه لا يسو جعلاته در الله أيسان هينين إلهي رسول كيس دان لا يسو جعلان جعل كاسيس عماي وعلى أركيسا مالين والبا dadkii wada socday oo isgooyay oo iscaayay oo isxamanay oo isdilayay arkaysa macnaha marka hore ayaa waxa weeye aasaas aan loo sameeynin maxabadooda maxabada waxa la rabaa aasaskeedu lilaahi subhanahu wa ta'ala wa rasuulihi inuu ahaado dadka ilaahi rasuulkiisa daraadiisu jeclaada iimaanku ma kala go'aan xiriirkooda laakiin hadda tiraade dad waxaan maaratay xoolaan isku jeclaysiha waxaan ku jeclaha wala xaw ii yeela biri marka waxaan socon maan markasta biri waa la weynaya biri markii la weyno qofkaas gacan ku meeyis waliba kaasa kuugu colaad badan maxaa yeelay waxa uu dhahay Sufyaan Thawri taabici jaliilka ahay waxa uu dhahay aslu kullu cadaawatin al-ihsaan ila al-li'am cadaawadan asalkeedu meesha uu ka yimaado inaad ihsaan u sameeyso dad doqona weey dadka doqonta qofkii wax u sameeyay ayay maaratay ugu xun yihiin oo ugu colaad badan yihiin marka waxaana yeelaya hadda waxa weeye iimaankoodii baan jirin iimaan la'aan baa haysa markaasaa iimaankoodu wuxuu ahay kaliya intaas yarta oo ay waxa ka cunayaan war wax adduunyo sii socon maayaan ee haddii la isjeclaanayo jacaylkaas aasaaska loo toosiyo lillaahi wa rasuulihi laga dhigo haddii la rabo in la isjeclaado haddii laakiin dana adduunyo ay tahay adduunyadaas inta la isku haysto kaliya la isjeclaanaya siyaasad haday tahay waxaas haday tahay waa inta kaliya hawshaas la isla wado marka maxabba mahantaas maxabba lama yiraahdo maxay la rasuulku waxa uu dhahay alayhi salaatu wasalaam wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala midda saddexaad waxa uu dhahay rasuulku wa an yakraha an ya'uuda fil kufri kama yakrahu an yughdafa fi an-nar waxa uu dhahay rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam waa inuu ka hadaa inuu gaalnimo ku noqdo gaalnimo inuu ku noqdo mas'ala waxa weeye gaalnimada markii hore doo ka soo baxay oo islaamay waa gooni iyo hadoo weligiisba muslim ahay inuu gaalnimo oo markaas gaal noqdo isku mid waaye waa inuu ka hadaa an yacuuda fil kufri gaalnimo inuu ku noqdo oo gaalnimo oo gaal uu ahaado yasiira kaafiran weeye kama yakrahu sidoo u kahanaayo oo necab yahay ay yuqdafa fi naar in lagu tuuro sida oo maarata u kahanaayo dab naar in dhexda loogaga rido waa inuu gaalnimada u kahdaa gaalnimada sidaas loo baxay la gaalnimadu naarta ayada ku geeyis qofku haduu gaal yahay waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu cadeeyay oo waciidka alla uu yahay inuu naar u galaayo marka hadda gaalnimada sida loo kahanaayo waa in loo kaadaa sida qof markaasi bohol naar lagu tuurayo kala say u kaanayso ilaa bohoshaas naarta waa ku halaagsamaysa waa ku dhimanaysa hadii gaalnimo markaasi waxa weeye adan kaanne qiyaamo ayaa markaasi cadaab iyo dhibaato ayaad ku dhacaysaa waxa weeye marka iimaanka kaamilka saddexdaas khasladood qofkii hela ayaa iimaanka macaantiisa helo dhahay hadda qof walba waa fahmayaa hadda mar kale aan ku celino ku celis ma rabtee ilaahay rasuulkiisa waa inaad cid kasta ka jeclaata qofka muslimka waa inaad jeclaata dar alla aad u jeclaata wax kale aad u jeclaanin gaalnimada waa inaad ka hataa inaad gaalnimo aad ku laabato sida aad u kaanayso naar in lagu tuuro xadiiska asaga laftirkiisu waxa weeye umahaadka ilaa Abu Daawud ma inta ka waa warisay marka hadda sidaas ayaa marka hataa dadka wanaagsan oo la jeclaado iimaanka kaamilka ayay kamid tahay maxaa ila xadiis isla Anas wariya waxa uu dhahay rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam al-iimaanu hubbul ansaari waxa uu dhahay rasuulku ma ya aayatul iimaani u dhahay nabi hubbul ansaari wa aayatul nifaaqi bughdul ansaari u dhahay nabi waxa uu dhahay rasuulku alayhi salaatu wasalaam iimaanka calaamadiisu waxa weeye ansaar la jeclaado ansaaru rasuulillah illa jeclaado dadka nabigeena alayhi salaatu wasalaam madiina ugu tagay oo nabigu ku soo dhaweeyay jacaylkoodu waxa uu ku tusinayaa iimaan oo ku tusinayaa
qofka jecel waxa weeye waxa la dhihi kara waa qof mu'mina weeye waa in la jeclaadaa weeye qofkii markaas aansaar u caroodane waxa weeye qof maaragtay asaguna waxa weeye munaafiq ah oo noqonaya oo markaasi jacaylkoodu iimaan kaamil ayaa laga helayaa caradooda loo caroodo ama la nacdo ama la kahane waxay keenaysaa markaas munaafiqnimay keenaysaa munaafiqiintana waa tawdhahay alle innal munaafiqiina fi darakil asfali min an-naari ilaahi dadka munaafiqiinta naarta dabaqa uga hooseeya ayaa lagu ridayaa ayaga iyo markaasi fircoon iyo aalkiisaba marka waxa weeye amuurahaas oo dhan waxay ka mid yihiin iimaanka kaamilka ayay ka mid yihiin marka waxaanu ku dadaalaana sida iimaankeenu oo kaamil ku ahaado oo aanu iska ilaalinaa iimaanka sida markaasi nuqsaanta u keenaysa waxyaabahaas ayaa markaasaa la rabaa in la iska ilaaliyo marka hadda waxa weeye darsigeeni ka waramayay awsaaful iimaan alkaamil asagana intaasuu noogu egyahay وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد